maamulka dowladda hoose ee degmada Garadeg uu hogaaminayay maayirka degmada Garadeg Maxamed Cilmi Maxamuud maayir ku-xigeenka degmada Garadeg Sahal Maxamed Ismaaciil iyo xubnaha golaha deegaanka ee degmada Garadeg ayaa hambalyo u diray shirguddoonka cusub ee loo diray golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo kala ahaa Cabdirasaaq Khaliif Axmed Saciid Mire Faarax iyo Cali Xamed Jibriil iyagoo Ilaahay uga bariyay inuu ku fududeeyo xilka loo igmado raggaana waanu hambalyeynaa kuwa la doortay iyo kuwa waayayba waanu hambalyeynaa Cabdirasaaq Khaliif waxaan leeyahay waxa halkan kaaga salaamayna golihii deegaanka Garadeg iyo dadweynihii Garadeg oo aan mikrofoonka soo wada gelin oo kule hambalyo waxaanu hambalyeynayaa sida halkan hore looga sheegay odaydii ka soo shaqeeyay Soomaaliland ee jagooyinka wada hayay kii maxkamadda guurtida kii hore baarlamaanka joogi jiray runtii haddaanay dadaalin maanta oo aanay gacan qabanin sidii ay wixii jabaqtimaadaba ay u baqtiin lahaayeen may suura gasheen inuu dhaco foodka wanaagsani wax kuwa la doortay iyo kuwa kaadhayba waxaan leeyahay hambalyo iyo kuwii wax doortay iyo kuwa wax dooranba waxaan kaloo ku mahad celinaynaa sidii wanaagsanayd ee baarlamaanka la doortay cusub ee u soo fadhiisteen iyo sidii wanaagsanayd u codeeyeen waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa dhammaanba ragga la doortay ee ku guulaystay doorashadii maanta ka dhacday 3 bisha 8aad golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay hambalyo dhammaantiin Cabdirasaaq Khaliif Axmed gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada gudoomiye ku-xigeenka koowaad Saciid Mire Faarax Giire Cali Xamed Jibriil dhammaantiin waxaan leenahay hambalyo Ilaahay xilka idinku asurahay idin fududeeyo inta laga guulaystana waxaan leeyahay waa mahadsantiin aad iyo aad baan ku hambalyeynaa insha Allah waxaan idin rajaynaynaa guul iyo gamacsiga gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirasaaq Khaliif gudoomiye ku-xigeenka koowaad Saciid Mire Faarax iyo Cali Xamed Jibriil oo gudoomiye ku-xigeenka labaad intaba aad iyo aad baan hambalyeynayaa waxaan kaloo hambalyeynayaa Faratoon iyo Cumar Jaamac Faarax iyo Qodax saddexdaana waan hambalyeynayaa sida fiican shirguddoonka cusub ee golaha baarlamaanka golaha wakiilada Soomaaliland ee la doortay waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa sidii sharafta ku dheehnayd ee ay u doorteen saddexda xubnood ee gudoominaya golaha ugu horeeyay golaha Cabdirasaaq Khaliif Axmed gudoomiye ku-xigeenka koowaad Saciid Mire Faarax gudoomiye ku-xigeenka labaad Cali Xamed Jibriil waxaanu leenahay maanta halkan waa idinka soo hambalyeynaa waana idinku ducaynaynaa in Ilaahay xilka idinku asturo fariintani maanta waa hambalyo iyo duco xilka in Ilaahay idinku asturo idinku soo golaha baarlamaanka ee cusub ee la doortay maanta iyaguna doortay shirguddoonkoodii ee u doortay sida isku tanaasulka leh sida ay sharaftu ku jirto sida kala dambeynta leh runtii waxaanu aad iyo aad u sii bogaadinaynaa saddexda gudoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali gudoomiyaha golaha guurtida Salebaan Maxamuud Aadan gudoomiyihii hore ee golaha baarlamaanka Baashe Maxamed Faarax madarsare warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland